aad iyo aad u mahadsantihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga aad noo soo horteen iyo maalmaha aad nala joogteen waxay ahayd 2 maalin oo qurux badan oo laga hadlayo media law ama xeerka warbaahinta ama sharciga warbaahinta taasna waxay muhiim u ahayd qof walba oo suxufi ah sababtoo ah xeerkan warbaahinta wuxuu qeexayaa wax badan oo ku saabsan dhowrista xuquuqda suxufiga iyo sidoo kale dhowrista xuquuqda warbaahinta maadaama warbaahinta wariyuhuba ay u shaqeynayaan bulshada ay yihiin adeegayaasha muwaadiniinta marka labadii maalmood aan isla joognay oo aan dooda quruxda badan ka yeelanay xeerkan iyo sida loogu dari karo qodobo qeexaya xuquuqaadka gabdhaha suxufiyiinta waxay ahayd waqti fiican oo haddana wax badan oo maskaxshiil ah lagu sameeyay xeerkan dhowrka qodob ka kooban qodobada uu qeexay intiisa badan waxa u badan dhowrista xuquuqda suxufiga ama ha noqoto shaqada ama xirfadda ama marka ciqaab noqoto waxyaabaha qofkaas muteysanaya ama xogta wax la xiriiro ama shaqaalaysiintaba in qodobadan sida dastuurka qabyada ahba ugu qoran yahay in haweenku ay qayb ka noqon karaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo sidoo kale xuquuqaadka asaasiga ee muwaadinimadu ay leeyihiin maadaama ay ku xusan yihiin sidoo kale sharciga shaqada iyo shaqaalaha iyo sharciga looga ah shaqada guud ee shaqaalaha maadaama xeerar badan ay jiraan oo arrimaha shaqada aad uga hadlayo muhiimaddu waxay ahayd marka xeerkan miidiyaha ama warbaahinta in lagu xuso qodobo sidaas oo kale ama haweenka siinayo fasax dhalmo ama siinayo bosishanada ama jagooyinku inay qayb ka noqon karaan marka waxay ahayd wax qurux badan soo jeedimaheennana waxyaabahaas salka ku hayeen waana rajeynayaa maadaama xeerkan uu heerar kala duwan soo maray oo ilaa madaxweynuhu saxiixay haddana weli la yiri ha lisku fiiriyo oo dib u eegis ha loo fiiriyo waa fursad fiican oo lagu soo gelin karo qodobada annaga aan dumar ahaan gaar ahaan haweenka suxufiyiinta ahaan aan niyadda ku hayno aan ka doodeyn sidoo kale doodahan oo kale waxay gaari doonaan ilaa iyo gobolada warbaahinada ku yaala gobolada dalka ayaa iyaguna sidan oo kale doodo ku saabsan xeerka warbaahinta looga qaban doonaa iyagana qodobbaa ka soo bixi doona gabdhaha suxufiyiinta ee jooga gobolada ee ka howlgala maadaama ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed SWJO uu mar walba ka shaqeeyo dhiirigelinta iyo garab istaaga iyo waliba caawinta haweenka suxufiyiinta oo inta aan anagu shaqeynayno tan iyo 2013 doodaha sidan oo kale isku imaatinka tababarada waxay fursad fiican siiyeen haweenka suxufiyiinta oo ay geeyeen miiska go'aan gaarista oo ay geeyeen inay doodi karaan oo ay geeyeen inay xuquuqaad heli karaan marka baaqi xaq dhowrka oo kale iyo waxyaabo badan ayaa jiray oo la qabtay waxaasna wax badan oo faa'iido leeyihiin marka la hadlo ama la dooda la ogaan karaa in qofku qof yahay amaba waxa la sheegay ay muhiim yihiin marka waxay tan noo muujinaysaa in muhiimad ay noo leedahay waana rajeynayaa fursadahan markay gobolada gaaraan isku soo gabagaboobaan in wax badan ka soo bixi doonaan marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo idinkoo barnaamijkan kala soo qayb gal labada maalin isla joognay sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino IMS Foyo oo mar walba na garab taagan nagu caawiso sidii aan dadku isugu keeni lahayn nagu caawiso sidii aan baahiyaha markaas u baahan yihiin dumarka gaar ahaan kuwa suxufiyiinta ah uga xaqabtir lahayn marka aad u mahadsantihiin waqtigana haydiin wacnaado waxaan rajeynayaa doodo badan iyo kulamo badan iyo aragti isdhaafsiyo badan inaan isugu imaan doono waqtiyo intaan ka badan